Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال maanta waxaa marti halkan loogu raagay show siyaasi lagu cadaa oo xaaladaha geeska Afrika wax badan ka og wadani Cabdirashiid Axmed Cali oo ku magac dheer Madoobe marka wareysi maxay ahayd xasaasiya oo gaar ahaan ku saabsan geeska Afrika kana si gaar ahaan dalka Soomaaliya ayaan ka wareysanayna marka horeyso marka mudane ku soo dhawow Cabdirashiid ku soo dhawow raagi show aad muhiim kaaga mahadcelinayaa raagi show waa ku mahadsantahay waqtiga iyo timeka isiisay waan kaaga mahadcelinayaa daadiinta iyo barnaamijka qiimaha leh marka Cabdirashiid waxa jirto bariyahan dambe dawladda Soomaaliya أنتو حسن شيخ يمد أيقو أديكسنا شعب كديغانكا إيو مامل قبوليدية ديغان ندا إن دقال علوس لبو قادي أرقى حساد الشباب مركا دقال كاسو حالة وقتي حاضر كان حلقو مريا راغو هدي أن أرماس إنتان كوغ هاي أن وحير كتابتو وعلى سعتها وأرقى حساد إيو شباب ودن كان واحد شوغين مددير hadda waa dawladii intii muddaa laga soo bilaabo xilligii Shariif wixii ka dambeeyay argixisadu dagaal lama ay kulmin way ku xoogeysteen wadanka dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba dawladdan cusub waxay bilowday inay wax ka bedesho qaabka hore oo dawladihii hore ay ula dhaqmayeen shabaab marka hadda wararka ugu dambeeyay aan ka maqlayno inuu laba maamul goboleed uu ka socdo dagaalka xoogiisu Galmudug iyo Hirshabeelle sida ay wararku sheegayaan raagow gobol maamul goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan inuu wax yar 99% uu hadda uu dagaalkaas uu shabaab laga xoreeyay gobolka Shabeellada Dhexana ay hadda ay ka bilaabaan rabto gobolka ismaamulka maamul goboleedka Galmudug sida wararka aan ka helayno inuu hadda dhaqdhaqaaq xoog leh ka socdo magaalooyin iyo degmooyin iyagana ay hadda ka xoreeyeen marka waa soo dhaweynaynaa wadanka iyo dadka abaar culus ah haysatay dhaqaale xumo dadka haysay isku socod la'aan bahayay marka hadda waxay fududeynaysaa dadkii qarka u saaraa macluusha inay u dhintaan oo amniguna iyo dhibaataduna shabaabna ay u dheerayd in hadda loo helo wadooyin iyo gargaar meel ay u maro marka waxaan rajaynaynaa inay dawladdan ku guuleysato waxna ka bedesho sidii hore ay shabaab ugu naaxi jireen wadanka warka Cabdirashiid mahadsanid kolley wax badan baad ka ogtahay xaaladaha geeska Afrika gaar ahaan xaaladda Soomaaliya marka shabaab marka Soomaaliya waxay joogtay maxay dadka ku dhibaateynayay muddo in ka badan 15 sano marka maxaad is leedahay xaguu dhaqaale uga imaada shabaab xagee hub ka helaan marka maxaad is leedahay maxaa loogu guuleysan lahayd ilaa iminka raago waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan oo siyaasiyiin Soomaaliyeed iyo shacab badan ba in badan maskaxdooda ku guuxaysay raago nimankan waa niman dhowr qaybood ay iskugu jiraan argagixisada wadankan degan tactical ama qaabab badan bayna isticmaalaan wadanka ugu nool yihiin haddaan u horeysiino shabaab waxay u kala baxaan qayb ciidan ahaan u dagaalamo iyo qayb dhaqaale ahaan u qaabilsan iyo qayb xiriirka iyo xogaha u qaabilsan marka dhaqaalaha ugu muhiimsan waxay ka helaan shirkadaha ayay isticmaalaan
qaar ahaan laba qaybood bay xooga saaraan, qeybta isgaarsiinta raagow iyo qeybta bangiyada. raagow waxaad og tahay shabaab gobolka wadanka Soomaaliya gees kasto ay kaga nool yihiin waxay isticmaalaan isgaarsiin, telefoon bay wataan, waxay isticmaalaan in account uu telefoonkaas leeyahay oo lacagta loo marsiiyo. marka waxaad isweydiin kartaa nin shabaaba oo argagixisa oo telefoonkii isticmaalaya isa haddana lacagtii ugu soo dhacaysa meesha uu joogo iyo khadka uu isticmaalahayana ay tahay khadkii Soomaaliya. marka waxaan is leenahay laba qaab baa u kala saaraynayo. culayska ugu weyn oo ay dadka ku hayaan waxa weeye waxay isticmaalayaan awood ku leeyihiin isgaarsiintii Soomaaliya, communicationka ayay qeyb xoog la ka haystaan. telefoonadooda iyo simkaaradooda raagow lama diiwaan geliyo, lamana rejistareeyo. qof kastoo argagixisa wuxuu haystaa 5 ilaa 10 simkaar oo telefoonadiisa uu kala gashanayo. waxa u fududeynaya oo arintaas wax kala ogna waxaan dhihi karaa oo ay qeyb xoog la ku haystaan haba ama cabsi ha u geyso ama maamulka ka mid ahaadeene waa shirkadda isgaarsiinta ee markaas ay isticmaalayaan. qeybta labaad oo kale oo muhiimka raagow oo la rabo inay shacabku ogaadaan oo dawladdu ogaato waxa weeye sim kaarka uu isticmaalayo oo bangiga uu uga furan yahay oo lacagta loo marsiinayo. akoonka uu isticmaalayo waxa iskale bangi Soomaali leedahay oo magaalada iyo wadanka ka furan. isagana waxa u fududeynaya shakhsigaas magacaas le argagixisada oo magaca ugu furan yahay inuu sim kaarkiina lacagta ugu soo dhacdo oo bangigii systemka wadanka isticmaalayo, qeybtii telefoonka communicationkii iyo hadalkiina uu isticmaalayo. marka waxaan is dhihi karaa laba barnaamij oo waaweyn oo isku xiran oo qeyb bangigii iyo meeshii lacaguhu marayeen iyo akoonmadii iyo qeyb isgaarsiintii oo siimamkii oo shirkadihii muhiimka wadanka u ahaa oo la rabay inay amniga wax ka qeyb qaataan iyo ayaa qeybna isgaarsiintii ay ka isticmaalayaan, qeybna financialkii iyo akoonkii iyo bangiyadii ka isticmaalayaan raagow. okay cabdirashiid aad baad u mahadsantahay. marka haddii arrimahan ay jiraan, marka dowladda Soomaaliya waxay leedahay xafiisyo amni bay leedahay ama dad amniga ka shaqeeyo ama xafiisyada sirdoonka ayay leeyihiin. marka sidee maxay ahayd ayagoo adeegsanaya kuwa, marka sidee ayaa lagu xakameyn karaa baad is leedahay xaaladahan maxay kuwa isgaarsiinta iyo lacagahan ay helaan argagixisada al-shabaab? aad iyo aad raagow sida ugu habboon ee lagu xakameyn karo dawladduna ay arintaas wax uga qaban kartaa waxa weeye waxaa jira code wadanku leeyahay Soomaaliya oo 252 la yiraahdo. marka u horeysa waa in horta shirkadaha ama isgaarsiinta kambaniyada private ka oo wadanka maal gashanaya waa inay horta ogaadaan 252 numberka koorkiisu yahay in wadanku uu leeyahay oo dawladdu ay mas'uul ka tahay. shirkadaha maal gashanaya wadankana inay u hoggaansamaan shuruucda iyo heshiisyada wadanka uu la galayo. haddii shirkad kamida shirkadahaas koorkaas isticmaalaysa oo isgaarsiinta qeyb ka ah ay ku xadgudubto xeer hoosaadka ama heshiiska wadanka oo ah inay u fududeyso nin argagixisa oo shabaaba oo magaciisa ay taqaan inay sim card siiso oo numberka u fududeyso dad ku dhibaateeyo oo shirkadiina ay og tahay xeer hoosaadka ama heshiiska shirkadaas lagu qaban karo waa in ay dawladdu la timaada oo ah haddii shirkaddu aysan u hogaansamayn amniga iyo qarannimada wadanka dadka dhibaateynaya waa inay ku dhumin kartaa laysinka iyo dee laba kuu roon yahay maalgeliska wadanka ay ku sameynaysa waa inay ku weyn kartaa. qeybta labaad oo ah bangiga raagow akoonka uma furi karo bangigu qof uusan macluumaadkiisa saxda ahayn hadduu yahay argixiso ama shabaab oo uu bangigu u fududeeyo akoonkaas siiyo wadanka laysinku ma laga ceshan karaa, ciqaab intee la-eg ayuu kala kulmi karaa
waa in bangiguna uu ogyahay shirkadda isgaarsiintuna ay og tahay. haddii marka labadaas institution oo ah qeybta isgaarsiinta iyo qeybta bangiga oo financialka qaabilsan hadday ogsoon yihiin inay uga imaanayso inay ku dhuminahayaan laysinkooda, haddii lagu ogaado in bangigu uu u fududeeyey dad shabaab ama argagixiso kamid a ama ajnabi ha ahaadeen ama soomaali ha ahaadeen inuu bangiyadii iyo akoontadii bangigaas qof argagixisada ka furatay kuna isticmaalahayan, dhaqaalihiina ku aruursanayaan, kalana baxayaan at the same time isla markaasna aysan dowladdii iyo systemka waddanka ka jiray aysan u gudbinayn oo hay-adihii amniga waddanka ku shuqul lahaa aysan macluumaad la wadaageen inuu dadkaana argixsan yihiin, inay isticmaalahayaan in waxyaabaha ayagu ay ka ogyihiin. taas marka waa in lagula xisaabtamaa hay-adaha ku shuqule dhinaca maaliyadda. qeybta ugu muhiimsan oo waddanka wax weyn looga qaban karaa waa isgaarsiinta. raagow waddanka ugu yaraan 10 milyan ilaa 9 milyan ku dhawaad oo simkaara laga isticmaalaa. argagixisaduna ninka u yar waxa weeye wuxuu wataa 5 simkaar. waa in mas-uuliyadda ay qaataan hay-adaha ku shuqule oo ah yaa mas-uul ka ah simkaarada ay shabaab isticmaalahayaan. haddii lagu ogaado hay-adaha maalgashada waddanka oo isgaarsiinta iskale, haddii lagu ogaado in ay u fududeeyeen argagixiso waddankan dhibaateynaysa dadkii iyo shacabkii iyo deegaankii, inay shirkadii u fududeysay iyadoo hay-adihii amniga ku shuqul lahaa aysan la socodsiin, waa inay shirkadaas ku mutaysataa in laysinka lagala noqonayo oo ay ku weysaa ganacsigeedii iyo not only inay raagow keliya maahan inay ku weysaana, waa inay ciqaabteedii iyo ganaaxeedii bixisaan. marka laba qaybooda u kala saaray in lagula xisaabtamo hay-adaha simkaarada iyo isgaarsiinta bixiya qeybta communicationka. telephone ama simkaar aan registraysnayn oo qof wato haddii lagu helo shirkadaas in ay ciqaab mutaysanayso. qeybta kale oo ah bangiyada, haddii lagu helo bangiyada waddanka ka jira qaar kamid a in shabaab ama dad argagixisaha ay isticmaalayaan bangiyada waddanka ka furan oo lacagahooda lagu ogaado inay ayagoo og bangiyadu inay dadkaas argagixisan yihiin, akoomana ku leeyihiin bangigaas waa inuu ogsoonaada in dowladdu hadday ogaato ciqaabna ay kala kulmayaan, laysinkana nagala noqon karo. waxa kaaga sii dara raago aan kugu daraya waxay tahay hay-adaha isgaarsiinta xoga amni oo aan baaritaan ku sameynay raago. isgaarsiinta sida la sheegaya xarumaha waaweyn oo wax laga hago waxaa jooga rag u qaabilsan macluumaadka shabaab. waxaa laga yaabaa siyaasiyiinta, wasiirada, ragga amniga dowladda u qaabilsan simkaarada ay wataan xogtooda iyo meelaha ay marayaan in shirkadaas dadka ka shaqeynaya argixisada inayba already og yihiin oo ay la socdaan, oo waxaaba khatar ku jira oo iska dhaaf in shirkadihii wax laga qabtay. telefoonada ay hay-adaha dowladdu isticmaalayaan ayaaman la tarastagarayn karinba shirkadaha simkaaradaas bixinayo. raago waxaa dhacdaa laleeyahay hadda ka hor in rag muhiim u ah siyaasiyiina oo simkaaradaas isticmaalaya meesha ay marahayaan in shirkadda laga ogaanayo, wadaduu marayo iyo meesha uu markaas taagan yahay. shirkadda inta laga soo ogaaday loo soo diray dadkii howlgalkaa fulin lahaa, meeshaas lagu dilayo. waxaa macluumaadkaas bixinaya meelaha ugu badan ay ka helayaan waa signalka isgaarsiinta. marka sidee wasiirka isgaarsiinta iyo hay-adda amniga oo qaabilsan waddanka sirdoonka sidee ayay ku ogaan karaan xogta ugu muhiimsan oo qeybta isgaarsiinta ah iyo qeybta financialka? halka qodobaan rabo raago inaan kugu soo guda waxa weeye waa la socotaayoo waddanku wuxuu leeyahay bangi dhexe oo federaalku leeyahay, dowladda dhexa. waxa bangiga ka furan waddanka barayfadyo u badan yihiin oo shakhsiyaad ganacsataabaa leh. hal ahaadeene raago waxa ganacsi ka socda waddankaas security clearance check ganacsi lagu sameeyaa ma jiro. shirkad baa imaanaysa, ganacsi bay maal gashanaysaa,
security clearance check oo dowladdu marsiinayso yaa iskale kambanigan iyuu u diiwaan gashan yahay. waxaa dhacda sida wararka laga helayo kambaniyaal waaweyn oo wadanka ka shaqeeya oo shakhsiyaad Soomaali ay shaqaale ka yihiin balse aysan wadanka Soomaali lahayn, keliyana ay u joogaan inay fududeeyaan, gaarsiiyaan maalgelintaas, dhibaateeyaan dadka shacabka Soomaaliyeed. marka sidee lagu ogaan karaa kambaniyadan waaweyn oo wadanka ka shaqeynaya, isgaarsiintan wadanka ka shaqeynaysa diiwaangelintooda iyo registrationka, lacagtan la isku dirayo oo ninka shabaabka inta akoonka bangiga ka furto telefonkiisa lacagta loogu dirayo, sidee ku ogaan karaa agaasimaha sirdoonka, sidee ku ogaan karaa dadka nambaradaas isticmaalaya akoomadaas iskale, sidee agaasimaha guud ee sirdoonka iyo bangiga privateka iyo bangiga federaalka all that iyagoo isku mid ah sidee uga wada shaqeyn karaan, sidee loogu fududeyn karaa in dowladda ay la shaqeeyaan hay-adaha maaliyadda oo bangiyada privateka loo leeyahay iyo hay-adaha privateka loo leeyahay oo isgaarsiinta iyagoo u hoggaansamaya xeerarka wadanka. haddii lagu khasbo raagow inay hay-adaha isgaarsiinta oo privateka loo leeyahay iyo hay-adaha loo leeyahay goonida oo bangiyada privateka inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga, waxaan hubaa in la helayo dadka howlgalka maaliyadda ka wada oo dadka dhibaateynaya. aad baa umahadsantahay raag. cabdirashiid aad baad u mahadsan tahay. marka saad u falanqeysay khibradaada maxay ahayd aad ka aragtay dhinaca isgaarsiinta iyo dhinaca dhaqaalahaba sidii loogu hortagi lahaa al-shabaab, balse dowladda Soomaaliya annaguna waxaan usoo jeedin lahayn fikirkaas oo maxay mudane cabdirashiid uu soo jeediyey oo ah dagaalka hadda xabadda lagu wado garab isla maxay ahayd taas in maxay sidii loo xakameyn lahaa dhaqaalahan ay helaan iyo isgaarsiinta haddii laga xakameeyo in aada loo wiiqayo awoodooda ayaan aaminsannahay. marka cabdirashiid ugu dambeyn maxaad fariin nooceed u diri lahayd dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyaba? raagow aad iyo aad baad u mahadsantahay raagow. halkan waxaa u marsiin lahaa fariin si guud ugu socota mas-uuliyiinta Soomaalida, kuwa xilka haya iyo kuwa aan xilka haynba. in waxaan aragnaa in badan oo kamid ah siyaasiyiinta xilka haya iyo siyaasiyiinta mucaaradka labaduba ay siyaasadeeyaan arrimaha amniga iyagoo xukunkaas siyaasiga isku dhibaateynaya kan xilka haya iyo kan xilka hayn. waxaan soo jeedin lahayn inaysan mucaarad iyo muxaafidba aysan dhibaateyn dalka iyo dadka shacabka, aysan arrimaha amniga wadanka aysan siyaasadeyn. marka ciidan laga hadlayo, marka sirdoon laga hadlayo, marka wasiir amni laga hadlayo ama taliye sirdoon marka laga hadlayo inaysan siyaasadeyn oo aysan arrimaha amniga la wadaagin wadamo shisheeye, aysan social media iyo banaanka keenin sida wax u socdaan, oo ay kala shaqeeyaan kuwa xilka haya, ay qeyb ka noqdaan kuwa aan xilka hayn in wadanka ay amnigiisa wax ka sugaan. taas waa taas midda aan mas-uuliyiinta dowladda aan aad iyo aad fariin u gaarsiinayna waxaa kamid a inay keliya aysan la diriirin wiilasha yararka oo qoryaha wata oo wadooyinka taagan. dagaalka ugu weyn ee wadankan lagu investigareeyey oo argixisadu salka ballaaran dhigatay waa dhinaca maaliyadda. maskaxda ugu weyn raagow oo wadankan dhalinyaradiisa qoraysa waa dhinaca maaliyadda, waa dhinaca ganacsiga, waa dhinaca institutionka waxbarashada, waa dhinaca madarasooyinka iyo hay-ada iyo quraanka, dugsiyada quraanka. marka anigu waxaan dhihi lahaa keliya dowladdu inaysan xooga saarin dhalinyaro yaryara oo wadada taagan oo la leynahayo ama meel laga saarayo. waxa ugu weyn inay dowladda xooga saarto oo ugu weyn oo wadanka argagixisada abuuraya waa nimanka maskaxda iyo fikirka keenay oo systemka ku jira, oo ganacsatada bakhaarada leh, oo raagow la soo degaya alaabta, oo konteenarada u raran yihiin, oo ganacsigii fadhiyo, oo waxa weeye waxbarashadii iyo macalimiintii kamida. dadkaas in dowladdu xooga saarto say ku heli lahayd xogtooda. waxaana lagu heli karaa waxa weeye in
hay-adda sirdoonka qaranka la xoogeeyo arrimaha siyaasadda oo la siyaasadeynayo laga daayo rag amniga iyo sirdoonka wax ka yaqaano raagow wadanku waa joogaa rag waayo arag u ah amniga ku xeel dheer in sirdoonka wadanka la xoojiyo. raagow wadanka waxaa soo gala qalabka wax lagu qarxiyo oo suumanka yararka dhalinyarada lagu xiraayo wadanka laguma sameeyo, dibadda laga keeno. qeyb weyn waxaa ka ah sida wararkaan helayno ganacsato oo magaca soomaaliyeed sheegta laakiin dee damiir ahaan aan soomaali ahayn. waxaa ku dhex jira konteenarada wadanka lasoo gelinayo oo ganacsiga qalabka wadanka lagu dhibaateynayo, customka wadanka raagow oo ganacsiga customyadiisa wadanka hadday imbo dekada tahay iyo hadday aeroboorada tahay, hadday xuduudaha xataa aan la sugi karin meelaha magaalooyinka waaweyn laga soo gelayo oo ganacsigu kasoo gelayo customkeeda in aada loo adkeeyo. qalab wax badan oo technology oo fududeynahaya ama sheegahaya qaraxyada baabuurta ku raran kuwa isqarxinaya lama rabo, kuwa qaraxa ganacsiga wada oo customka caadiga oo alaabta ganacsiga ku dhex jira saaran yihiin. marka all raagow haddaan kusoo koobo dagaalku ma ahan yuusan ka noqon dhalinyaro ka wato oo wada lagu laaye. dagaalku wuxuu jiraa maskaxda weyn oo ku jirta dhinaca ganacsiga, dhinaca isgaarsiinta, dhinaca maaliyadda oo bangiyada, simkaarada, akoomada bangiyada ka furan, inta akoon oo ka dhex furan bangiyada brivateka loo leeyahay. lacag kasto raagow qodob muhiima rabaa inaan kuu sheego. wadamada hore u maray waxaan rabaa inaan dadkeyga uga faa'iideyno. wadamada hore u maray waad la socotaayo hadda wadankaan aan ku noolahay oo maraykanka ah wuxuu leeyahay banki dhexe oo federaal, wuxuu la shaqeeyaa intaas oo banki oo private loo leeyahay oo wadanka maal gashaday. heshiisyada lala galay sharci ahaan waxa weye banki kasta oo private oo qof customer lacag ka dirsanayo wuxuu transactionkaas marhayaa federaalka bankiga dowladdu leedahay. dowladduna waxay ballan qaaday ku heshiisay lacagtaas transactionka oo bankiga privateka ka timid oo bankiga kale oo privateka u socota inaan wax fiya la charge garayn. laakiin bankiga dhexe ee dowladdu wuxuu hubinayaa lacagtaas bankiga ka timid qofkaas uu isticmaalayo oo qofka bankigaas kale leh u socoto. bankigu wuxuu hubinayaa macluumaadkaas qofkaas haddii uu bankigaas privateka loo leeyahay uu incase macluumaadka qofkaas uusan wax badan ka ogeyn, waxaa wax badan ka ogaan kara bankiga dhexe ee dowladda. markay transactionka marto wuxuu helayaa xogtii qofkii lacagtaas dirahayay iyo qofka loo dirahayay. waxaa laga ogaan karaa markaas dadka lacagaha isku diraya ama xamar ha joogeen ama magaalooyinka weyn ama tuulooyinka ha joogeen. waxaa la helayaa dadka lacagaha isku diray xogtooda cidda ay yihiin, ma argagixisa ma dad caadiya. marka dhinaca in xooga la saaro bangiyada, in xooga la saaro dhinaca isgaarsiinta simkaarada la isticmaalayo, khaasatan raagow kambaniyada isgaarsiinta iskale oo nambarada bixiya in si gooniya loola xisaabtamo, sida wiilasha yararka loola xisaabtamayo wadooyinka taagan in loola xisaabtamo. inta simkaar ay baxshaan, inta akoon simkaaradaas ay ku switch gareeyaan oo ay ku furaan, waxaasoo dhan waa in lagula xisaabtama. raag aad baa umahadsantahay. cabdirashiid aad baad umahadsan tahay aragtidaada maxay aad naga siisay ee ku saabsan sidii looga hortagi lahaa al-shabaab iyo dowladdu say isu diyaari lahayd. marka waxaa jirta hadda dowladdii waxay xooga saartay al-shabaab inay la dagaalanto. haddii lacala lagu guuleysto al-shabaab maxay ahayd meesha laga tirtiro. marka soomaali sayna ugu noqonin qaabkii hore ee qabyaalada, fariin nooceed u diri lahayd? raagow fariin nooc soomaalidu waa taqaanaayo 30 sanaan dhowr iyo 30 sanaan raagow dowlad la-aan ahayn. dadka shacabka waxaa lagu sheegaa 75% inay dhalinyaro yihiin oo 35 iyo wixii ka yar yihiin. 35 iyo wixii ka yarna raagow waxaad dareemi kartaa inaysan nidaam dawliga aysan arkin. 91dii dowladdu markay dhacday ninkii 5 sano jiray maanta waa 37 jir. marka 37 jir aan dowlad iyo maamul iyo nidaam arkin
raagow oo qabyaalad iyo dagaal sokeeyo iyo qabiil ku koray maskaxdiisa si inuu u baahan yahay mashruuc weyn waa dareemi karta. marka anigu waxaan laba qayb aan kula talin lahaa dowladda in ay xoogga saarto barnaamijka wacyigelinta shacabka, khaasatan raagow wadanka wuxuu leeyahay isgaarsiin dowladda afkeeda ku hadasha. barnaamijyada ka baxana aan siyaasi ahaan anagu aan aada u dhageysano, balse 95% wacyigelin barnaamijkoodu ma aha. waxyaabo aan dowladda iyo shacabka isku xirayn bay waqti badan ku bixiyaan. marka waxaan soo jeedinaynaa in laga faa'iideysto barnaamijka idaacadda qaranka ka baxa, in loo isticmaalo wadanka ay fahmaan ragga idaacadda qaranka ka shaqeynaya message-ka loo abuuray idaacadda codka iyo marxaladda maanta lagu jiro oo ah 40 jir aan dowlad arag, qabiil iyo dagaal sokeeye kusoo koray. meesha keliya oo maskaxdiisa brain washka looga saari karo qabiil baa ka buuxa, argagixisaa la geliyey. meelo badan baa raagow looga faa'iideystay dhalinyarada Soomaaliyeed dowlad la'aanta jirtay. waxaas marka sidee looga saari karaa? waxaa looga saari karaa waa inay dowladdu maalgelisaa barnaamijyada ka baxaya idaacadda qaranka, loo sameeyaa wacyigelin iyo ama dhaqan celin. qaybta kale oo ugu muhiimsan raagow aan tala soo jeedinta ku sameynaya waxay waay wadanka sida aragtay wasaaradihiisa markaa fiirisid 30 sano dagaal sokeeya lagu jiray, 25% wadanka waa dadku waa daruufaha gaarka bay qabaan. waa dad nin dhaawac ku naafoobay, nin curyaana, dad aan shaqayn karin. waxay u bateen dad duruufaha gaarka la soo gudboonaaday. wasaaraddii qaabilsanayd dhinaca naafada iyo dhaqan celinta iyo adeegidda dadka duruufaha gaarka qaba meesha waa ka maqan tahay raagow. waxaa la siiyaa dhinaca priority-ga ama muhiimadda waxay dowladdu siisaa dhanka siyaasadda, dhanka amniga. meesha ugu muhiimsan oo shacabka lagu dhisi karo, quluubtooda lagu soo jeedin karo waxaa kamid a dadka danyartaa oo duruufaha gaarka qaba oo wadanka 25% hadda kasii maraya oo duruufaysan. adeeg noocee dowladdu ay siin kartaa? baahidooda maxay ka qaban kartaa? mashaariicda ugu badan iyo maalgeliska ugu badan qayb kamida ma gelisaa? dhinacaas waxaan qabaa haddii xoogga la saaro iyo dhanka wacyigelinta oo dhalinyarada argagixisada iyo dagaalka sokeeye iyo qabyaalada looga faa'iideysanayo, waxaan qabaa labadaas program hadday dowladda xoogga saarto in qabyaaladuna hoos u dhacayso. dowlad jacaylka iyo rabitaanka dowladduna raagow wuxuu ku imaadaa marka aad heshid dowladda waxa aad uga baahan tahay marka keesha. waxaan kusoo gabagabeynaya dowladaha hadda wadamada Soomaalidu ay yimaadaan oo adeega iyo nolosha ay nabadda kasoo doontaan, inta ugu badan waxa ay usoo raadsadaan waxa weeye inay helaan baahiyahooda gaarka dowlad ka caawisa. haddaa fiirisa marka dowlad oo ajnabiya oo diin islaam iyo aan haysan ayaa waxay fiirinaysaa duruufaha gaarka dadka qaba, dadka waxa weeye jilicsan inay u adeegto. marka dowladdii Soomaaliya oo dadkeedii dhex joogta oo hadda diiniyan iyo naxariistiina xambaarsan sidee ku dhici weysay inay shacabkaas adeegii ay iyagu u baahnaayeen ay siin weyso? sidee hadday ay siin weysase sidee dowlad jacayl loogu abuuri karaa? maxaa yeelay dowlad aysan adeegi ka helin xoog iyo military laguma jeclaysiin karo raagow. marka inay dowladduna adeega bulshada bixiso, wacyigelinta idaacadda qaranka laga faa'iideysto, dadka baahiyaha gaarka qaba oo 25% maraya adeeg ka duwan adeegyada kale loo siiyo. anigu waxaan kula talin lahaa meelaha laga dhisayo maskaxda shacabka in halka ku jirta raagow. aad baad u mahadsan tahay Cabdirashiid oo maanta maxay ahayd inuu soo booqday raagisho oo ka baxo Tempo Africa TV nala wadaagayay aqoontiisa iyo khibradiisa. marka Cabdirashiid aad baan ku soo dhaweynayaa, aad baad mahadsan tahay. raagisho maanta halkaas uu ku kooban yahay. marka waxaan idin leenahay la soo follow up gareeya, subscribe dhaha, like dhaha, insha Allah share gareeya. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager?
Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.